gumaysiga nolo hayo iyagoo waddankanaga la weerarayo baa maxay tahay annakina nala soo dhex maraya annaka waxay naga dhiganayaan like wadday naga sii dhigayaan waa kaa 500 oo gaari wax ka badan baa meesha maraya markiisiin waa kaa marka Soomaali waxaan leenahay had diyaar garoobaan adeer Soomaali ya fadhiga ka kacaan what the fuck up adeer waa kaa warkiisiin maano warkiisiin waxay nagu wadaani wax bilaadantinimo leh maaha maalmihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada lagu arkayay ciidamo dhanka Itoobiya ku yimi kuwaas oo ka sii gudbiyay xuduudda Soomaaliya oo soo galaya Soomaaliya haddaba barnaamijkan waxaa kula wadaagi doonaa muxuu yahay kaaraha Itoobiya ee ku wareega Soomaaliya kaas oo ka faa'iideysta khilaafaadka Soomaaliya dhexdeeda waxaana ku siin doonaa xilligu soo bilowmay dhowr tusaale oo cadna waa ku siin doonaa haddaba intaan barnaamijka gudan gelin waxaan ka codsanayaa barnaamijka inaad like saartid la sii wadaagtid asxaabtaada haddii aadan nala joogin aad nagu soo biirtid tan iyo burburkii Soomaaliya ee dagaalkii kadib 1977 ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya watii dowladnimada Soomaaliya ee dowladda kacaanka xoog badnayd ay burburtay laga soo bilaabo maalinta barnaamijkan ka hadli doona ayuu soo bilowmay watii jamada ay ku kaceen dowladda Soomaaliya watay ugu dambeyntii 1990 ku burburtay loo kala yaacay jamadahaasi watii ay saldhig ka dhigteen oo Itoobiya soo raaceen maadaama Itoobiya iyo Soomaaliya dagaal dhex maray ilaa iyo maalinta laga bilaabo waxaa ugu horeysay jamhadii SNM taas oo saldhig u ahaa Itoobiya inkastoo aysan ciidamo soo raacin iyada Itoobiyana hase ahaatee waxay saldhig u ahayd jamhadii SNM gabaadna u ahayd halkaas oo ay kaga soo duulayeen waana tii dagaalo badan ka dhaceen waqooyiga Soomaaliya oo jamhadda iyo dowladda ay u dhaxaysay waana tay markii dambe kula wareegeen gobolada Soomaaliya waqooyiga Soomaaliya dhacdo kale oo taa ka horeysay waxay ahayd 1900 oo soo bilaabmay barnaamijkan ku tilmaami doono aan leenahay kaaraha wareegay wuxuu soo bilaabmay 1964 watii Itoobiya ciidamada Itoobiyana oo la socda ciidamada Soomaaliya ay ku dhex mareen iyo ciidamo kale oo Soomaaliya koonfurta Soomaaliya waxaana ka dambeysay taan tilmaamanay ee jamhadii burburkii Soomaaliya oo saldhig u ahaa Itoobiya dhacdada saddexaadna waxay tahay tilmaamaysaa aynu ku tilmaami barnaamijkan aynu leenahay kaaraha wareega Itoobiya dhacdada saddexaad waxay tahay 2004 markii dowladda watii la abuuray dowladda federaalka la abuuray watii jamhadihii qobolayaashii iyo ay dagaal dhex maray dowladdii markaa la soo amaamuday taasoo ay isku khilaafeen markii ay dowladda ka soo horjeesteen la sameynayay qobolayaashii ciidamada madaxweynaha watay watii ay dagaal ku dhex maray markay iskhilaafeen Ali Mahdi Guureed madaxweynaha Soomaaliya markaa ahaa iyo qobolayaashii waana tii uu lahaa oo ku dhaaranayay haddaan kaaraha Itoobiya uusan ku wareegin Muqdisho waana tii sidii dhacday ee dagaalku dhex maray haddaba su'aashu waxay tahay kaarahaasi imisuu ku dhex wareegayaa Soomaaliya welis waa ku dhex wareegayaa balse ilaa goormuu ku dhex wareegi doonaa goormahaase laga bixi doonaa oo naga dhex bixi doonaa
inkastoo xagga dhanka siyaasadda aysan haddeer saameyn weyn aysan inagu lahayn. Itoobiya waa tii ay sanadihii ugu dambeeyey dagaallo iyada dhex galeen jamhado ay ka dhex abuurmeen. hase ahaatee waxaa laynaga faa'iidaystaa khilaafka Soomaalida dhexdeeda ama dowlad ha la socdeen markaa ciidamadaas iyo kaaraha intilaamno ama jamhada la socdeen maalintii khilaaf dhex yimaado ayay kaaraha soo dhex galaa maalinba meel buuna ku wareegaa. ugu dambeyntii su-aashu waxay tahay aad fikirka nagula waraagi doontaan kaarahaasi goormuu inaga dhex bixi doonaa wixii aragtiya qaybta faalada.